waatay axmedow weli waxaad ku sugan tahay Ukraine qofka kaliya ee Soomaaliga ah ee ku sugan Ukraine waqti xaadirkan aad tahay waa maxay sababtaad axmedow uga bixi weyday maadaama Soomaalida badankooda iyo dadkii ajaanibka ahaa iyo dadkii kale ee xitaa Ukrainiska dhaladka ahaa ay ka baxeen ay naftoodii la carreen maxaad uga bixi weyday adigu Ukraine carruur badan oo waddanka ku leeyahay koo iyo guryo waxbaan ku leeyahay labo waxaa jirto sharci ah la keenay oo ah 18 jir qofka ilaa 60 jir waddanka ma bixi karaan waddanka in la difaaco marka xukuumadda waxay gaartay barnaamijka waxay la gaariyay madaxweynihii prime minister waxay gaareen in waddanka aan laga cararin haddii laga cararin lahaa waddanka mar ruush qabsan lahaa waa in difaac loo galaa waddankii dhulkii waa gartay wax badan baad axmedow u soo joogtay waxaad u soo joogtay markabkii magaranayay Ukraine uu lahaa ee uu qabsaday qolada la yiraahdo burcadbadeedu waxaad ahayd ninkii doorka weyn ka qaatay arrinta maxaad ka xasuusataa waan ku qasbanaa qasabna ma ahayn inaan u tarjumo nimanka markabka haysto oo hubkan meesha inaan loo sii deynin ayaan lacag tabanayaan xaaladda guud ee waddanka waqti xaadirkan uu ku sugan yahay xaaladda dagaal iyo xaaladda amni Ukraine xaadirkan xaaladeedu waa sidee waqti xaadirkan walaalo intii hore way xaaladdu xogaa yar way isbedeshay oo ruushkiiba dib loo celiyay goboladii ay haysteen kadibna waxaa dhacday in ay ku bedeshaan nin parliamentary ahaa oo party haystay inay ku bedeshaan 250 qofood ruushkii u yiraahdo qaada cod u qaada goboladii Donbass iyo Donetsk cod qaata haddii aad cod qaadataan waxaad ku darsamaysaa ruushka marka maalmahan waxay sugayaan waa tahay arrimahaas oo dhan sidee buu u arkaa shacabka Ukraine sidee bay u arkaan arrimaha qaadayo cod bixinta inay ku biiraan ruushka waxay u arkaan si aad u adag u arkaan waddanka in la kala gooyo aad bay u adag tahay dadku talabaad shacbigu waxay u arkaan si aad u qaldan weliba dadka codka dhiibaya group la aruursaday waaye oo iyaga isku jiraan waa tahay dawlad ahaan maxaa tallaabo ah ee ay doonayaan inay qaadaan waqti xaadirkan soo socdo warbaan baa iman doona laakiin madaxweynaha iyo dadkii shacbigii iyo kuwii parliamentariga ahaa dadkii prime ministerkii iyo wixii dhanbe intii ahaydba madaxdii waddanka ahayd way diidan yihiin waxaan ka xignaa dhimashaan ka xignaa ay leeyihiin ruushku meelaha qaar buu ka baxay waa la leeyahay meel dhanka kale Ukraine waxay sheeganaysaa guulo oo waxay leedahay annaga ka saarnay Kharkov oo kale iyo meelo maaragtay u dhow gobolka Kharkiv arrimaha bal maxaad naga siin kartaa warbixin mise ruushka isaga baxay mise guuldar uu kala kulmay ruushka goboladii Kharkov iyo erideedii ilaayo Kharkov hadii aad Kharkov taqaanin waxay u jirtaa xuduudda 70 kilomitir u jirtaa belgorod la yiraahdo meesha uu ka saaray mar weel laga saaray marka meeshii laakiin halka gobolka kale u dhigan yahay oo dad ciidan badan joogo laakiin xooga loo sheegtay marka xooga looga saaray meesha aad baad mahadsantahay